أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. waxaan la socnaan ikhwaani ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisa dadna waxa weeye wuxuu u dhamaystiray xubnahoodii dhammaan caqligii iyo xubnaha jawaarixda dhan ayuu u dhamaystiray. qaarna ilaahay subxaana watacaala waxay ama way ku dhashaan ama waxbaa ka gaara xubnahooda ayaa kala dhiman. walidaalika mawduuca maanta ka hadlayna waxay tahay dadka xaajada qaaska leh, dadka xaajada qaaska leh, ilmaha autismka qaba, dadka oo u baahan kaalmada gaarka ah. islaamka aragtidiisa maxay ka tahay inaan sheegno. marka ugu horeysa islaamka waa reebay qof muslim ah ceeb uu leeyahay oo quluqi ah oo uumis ah in lagu cambaareeyo ama lagu ceebeeyo. islaamku waa reebay, balse dadkaas laftigooda ilaahay xuquuq uu siiyey gaar ah. markaad fiirisid islaamka wuxuu ixtiraamayaa insaanka, walaqad karamnaa bani aadam. insaanka dhan ayuu ilaahay uu karaameeyey. marka waxaan rabaa saddex qodob inaan uga hadla arrintaa. qodob waxaan leeyahay horta hooyooyinkii iyo aabbayaashii lagu imtixaanay caruurtooda inay autism noqdaan ee caqligooda wax iska dhimo ama caaha gaarto oo ama indho la-aan ku dhashaan ama dhaga la-aan ku dhashaan. waxaasoo dhan waxaa u ogaataan waa ilaahay subxana watacaala qadartiisa horta marka hore in raalli ku noqdaan. maxaa yeele ayaga naftigooda testi ku socdaa. ilaahay subxana watacaala wuxuu ula jeedaa inaan ku cibro qaadano annaga. dadka nicmadii haastaan inay ku shukriyaan ayaa la doonayaa. saas daraaddeed waxaan leeyahay qofka muslimka inuu qadaa walqadarka u aamino oo ku sabro oo yidhaah qul lan yasiibuna ilaa maa kataba allahu lana. maxaa yeele waxaa laga yaabaa shaydaanka inuu yidhaah ilaahay muxuu ii siiyey cunugaan saan ah, cunuga autism maxaan u dhalay. qofku inuu is yidhaah qofkaas waa ku dimbaabaya arrintaa. isagoo cunugiina aan ka tegeynin ayuu xagga ilaahay haddana dembi uu ka kasbanaya. markuu hore nicmo ilaahay wuxuu siiyey waxaa laga yaabaa lacala allah inuu wax u taro cunugaas. maxaa yeele nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay tursaquuna inamaa tursaquuna wuxuu biducafaa'ikum, dadkan masaakiinta ah iyo aa u naxariisanaysid ah. walidaalika ibnu qayim wuxuu soo guuriyey wuxuu yihi dunuubta qaarkeed waxaa jiro qofka aan ka dhaqmaynin istikfaar kasta doo la yimaado ilaa ay ku sabraan dhibka haasta. marka waalidiinta ku sabraya caruurtooda, waalidka cunugka dhibay xabsiga ka galaya ama autismka ah, sabarkaad uu ku sabrayo dunuub badana lagaga dhaqaya. walidaalika ilahi subxana wataala wuxuu leeyahy inamaa yuwafa saabiruuna ajruhum bigayri xisaab. sabarkaas waxaan leeyahay dadka horku marko inay sabraan. labaad waxaan leeyahay qodobka kale waxay tahay islaamka sidii ula dhaqmaa dadkaas kale oo xaajada gaarka u baahan, baahida gaarka qaba. islaamka waxaad moodaa annaga dhaqankeeni ayaa ka batay islaamka iyo waxaan ku dhaqmay isma lah. annaga anaaniina nahan. waxaa laga yaabaa hooyada cunuga autismka dhashay in hooyada kale ay ku cambaaraysaa laga yaabaa. oo nabiga ilahina quraanka waa naga reebay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yasqaw min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaa. ilahi wuxuu leeyahay qoom kale ku jeesjeesin. gabadha ilmaha autismka qabta ilaahay wuxuu dhaafay, waxaa la reebay. fiiri waxaa la diiday. hadda maxaan leenahay baahida gaarka maxaa loo leeyahay waxaa la diidaa cudurkooda in lagu cambaareeyo. maxaa yeele ilahi quraanka wuxuu ku leeyahay walaa tanaabazuu bilalqaab. ma aha inaan magaciis ku bixino. ninka isha la inaad tiraahid weershi inaad tiraahid diinta ma qabto, cawir inaad tiraahid, lugay inaad qabtid, jiis inaad tiraahid, waxaas ma banaano. oo ilahi wuxuu leeyahay isku maan bi'sal ismu fusuuq bacda iimaan. walidaalika magacyada xun nabigu waa bedeli jiray calayhi salaatu wasalaam. marka waxaan leeyahay annaga marka waxaan la dhaqanaa kaas. fiiri inaa qofka ku ceebeyno ilmihii autismka haysta. war iidama waxaan ilaahay subxana watacaala adoo cibro kugu yahay. kow guri haddaa dhiseena ma u fiirino see ula tacaalumna ilmihii waxaa laleeyahay ayagana isolaat laga dhiga maaha. waa in ummadda lagu soo dhex daraa. arka diinteeda islaamka waxay qabta arka. kow ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sheegaya marka hore in ilmahaas joogitaankaada ilahay noogu naxariisanayo. joogitaankooda ilmahaas autismka qaba inay naxariista gurigaas ilmaha autismka jooga ilahay naxariista kusoo degaysa waa ka badan tahay. haddiise goormee ilmahaas lalama caamiltimo sidii ilahay subxana diinteena ay qabto wey. nabiga alayhi salatu wasalaam nin indhoolaa u yimid dariir ahaa, cutbaan ibna maalik in la dhahayo oo indhoolaha u yimid. rasuulku wuxuu ka codsanayaa wuxuu leeyahay wadidtu yaa rasuulallah annaka ta'tiinii, waxaan rabaa guriga inaa igu timaadid. maxaa samaynayaa fatusallii fii beyti faatakidu musalla.
wuxuu leeyahay waxaan rabaa gurigeyga meel kamid inaan barakeysto adig ku tukatid oo aan meeshaas anigana ku tukahayo maadaama uu masaajidkan indhoolo waayo mar kasta iman karin nabiga calayhi salatu wasalaam howshiisa dhan u beerdareeyey walidaalika dadkaas oo xaajada gaarka leh waxaan rabaa inaan howsheen dhan u beerdareeno aan iskugu tagno sidii ayaga farxad qalubtooda u gelin lahayn xaflada aan u samayno barnaamij aan u samayno aan ummadda kusoo dhex darno ayaa la doonaya wuxuu leeyahy nabiga alayhi salatu wasalaam abubakar iyo dadoo kaxeysta wuxuu yidhi ninkaas aan u tegaynaa aan kasoo aan usoo samaynaynaa gurigiisa ugu tagay wuxuu halkay kugu tukada halkaas meesha ugu tukaday nabiga aad buu u farxay maxaa dhacay wuxuu rabaa ninkaas inuu dhahla qalbigiisa inuu farxad geliyo ayuu doonaya nabigiisa alayhi salam waa lagu canaantay waa garanaysaan cabasa watawalla an jaahu alacma ilahi subxana watacaala waxaa lagu uma maktuum ayaa lagu canaantay oo la yiri ninkaas ma ka jeesanaysaa indhoolaha ku yimid dadka kale ma rabtaa in aadid oo quraysh iyo madaxda walidaalika dadkan u dhawaanshahooda nabiga alayhi walidaalika waxaa leeyahay markuu arko anas wuxuu leeyahay nabiga alayhi salatu wasalaam markuu arko ibn maktuum markuu arko wuxuu dhihi jiray ahlan biman caatabanii fiihi rabbi ilaahay ninka igu ceebay oo igu canaantay adiga saasuu ku salaami jiray alayhi walidaalika nabiga alayhi salatu waa darajiyey madiina mar dagaal uu aaday asagoo yiri hogaanka uu dhiib xataa maamulkii la soo dhex geliya rabaa ilmaha maxay ilmo kaleevara jiro waxay ku fiican yihiin waxaas ku fiican yihiin in la keeno oo laga soo qaado walidaalika sidoo kale cabdullaahi ibn mascuud ayaa mar waxaa lugihiisa caatay ahaayeen soo geed koraayo ayay dad ku qosleen nabiga calayhi salatu wasalaam waa dhaaray wuxuu walladii nafsi biyadihi ku dhaartee wuxuu leeyahay lahumaa macnaha labadiisa logood oo saaqood athqal fi miisaan min uxud way ka waa maxaa dhahay qalbigu wuxuu gelinaya mascuud wuxuu leeyahay dadkan ku yasaayo ku dhahay lugihiisa saasa ma aha lugahaaga miisaanka uxud hadii la saaro kuwaaga raajix naqanay jabalka uxudka ayuu leeyahay waxaas waxay tahay ninka xaaje gaar u hayso in si gaar loogu naxariisto ilaahayna quraanka waa noogu sheegay waxaan yiri yaa lagu jeesin yaa ayuha alladina aamanu la yasqawm qawmun min qawm asa an yakuna khayran minhum wala nisaa asa an yakuna khayran minhunna ilahi wuxuu leeyahy walaa talmizu anfusakum walaa tanaabazu bilalqaab bi'sa ismu fusuq bacda aliimaan aayaddaas waa sheegnay walidaalika ilaahay ma fiirinayo mandarka ma fiirinayo waxaa laga yaaba cunugaas autisma ilahay waa kaaga dhow yahay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum shakligaaga ma dhammaystiran tahay lugma la-dahay caqliga maa gaaban ilahay ma fiirina inamaa wuxuu fiirinayaa walaakin yandur ilaa quluubikum wa acmaalikum wa fiirinaya waxaa kalaa kusoo hartay sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegayaa balse waxaa la rabaa markaa arag dadkaas oo kale nicmada inaa ilaahay taa hayso ku shukrisid man ra'aa mubtalan uu yiri nabiga alayhi nin liimtixaan haddaad aragtid faqaala wuxuu dhahay alxamdulilah alladii caafaanii mima ibtalaaka bihi wafadlanii calaa kathiiri min annaas hadduu ku duceysto ilahi subxana wataala waxaas waa laga ilaaliya ayaa la doonaya sidoo kale waxaa arkaysaa sunnada nabiga alayhi salaatu wasalaam xadiiskii qudsiga wuxuu leeyahy nabiga alayhi salatu wasalaam yaquulu ilahay dhahay xadiis qudsi يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرضى له ثوابا دون الجنة wuxuu ninka indhaha aan ka rido oo ku sabra arrintaas wuxuu leeyahay wax kale uga gudi kara ilaa janno ma ahane ayuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu digay dadka oo waxaga ah xaajada gaar kale in lagu dheedheelo cunugkan waa lagu qoslaa kana loo jeedan in dhoolaa la arkay waa lagu dheedheelaa ilmahan autisma lagu cayaaraa waa lagu qoslaa waxay sheegaan ma banaano diinta nabigu wuxuu leeyahay malcuunun lacnada ilahay kule wuxuu leeyahay man kamahu acma can ariiq nin wuxuu yiri jidka kaga dhuunto nin dhoole jidka itoosir markaasuu inta u leexiyey xagga jidku ka qalucay jidku waa siriyey maxaa dhahay ninkan indhoole waxba og inta u jeediyey dadka waa iskaga cayaarayaan balse nin indhoole xataa haddaa salaanta kala dhuumatid kan kuma arkay dada waxaa jira markay arkaan ilmaha autismka wuxuu leeyahay salaamin maba ku og kan muxuu ka ogyahay ma aha nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay tarku salaami cala dariiri khiyaana wey nin indhoole haddaad aad salaamin asiraad kuma arkaayo waa khiyaano waxaa lamid ah ilmaha autismka lamid ah waxaa lamid ah dadka xaajada gaarka leh ayaa lamid ah walidaalika iimaanka wuxuu kaamil ku noqonayaa inaad dadkaas isxaan u fashid sadaqa aad baxsatid muxuu yiri nabiga calayhi salatu wasalaam sadaqaya ugu fadli badan markii la yidhi afdalu riqaab wuxuu yiri waxa ugu fiican tan ugu qiimaha badan ayaa ugu fiican markii la yiri hadduu ninka wax ma haysto waxaa la yiri tuciinu saanican oo tasnacu liakhraq akhraqan waxaa lala jeedaa laleeyahay ninka aan waxaa waaye aan caqliga lahayn ilmaha autism akhraqa la dhaha caqligooda gaaban wuxuu yiri inaad kaalmaysaan oo barnaamij u samaysaan ayaa waxaa kamid ah sadaqa aad baxsanaysiin lamid tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale
arrintan hadda benefit kala siiyay ilmahan autism lacagta loo qoray iyo dadka xanuunsan oo indhoolaha lacagta loo qoray islaamka ku horeeyay gaalada inay leedahay u qabina walidaalika markaa fiirisid Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waxa la yiri farada laduu wadaaxaat dadka oo ceebaha leh oo baahidooda baahida u baahan en hadda aan sheegayno oo autism ka qaba ilmaha dadka oo ducafada oo indhaha la ama oo dhagoolaha ah kuwaas oo kale wuxuu yiri nabiga Umar ibn Khattab wuxuu yiri baytul maalka wax laga siinaya lacagta zakada lagu keeno ay wax laga siinaya meeshaas laga marsuuf loo qoray Umar Abdul Aziz markuu yimid waaba ka sii daro asagana wuxuu leeyahay dadka nasiibo ugu yeelay masaakiinta ayuu u qoray wuxuu yiri sidoo kale en waa la soo koobay tiraha la soo koobay uu yiri nin kasta wuxuu yeelay nin wado keer u sameeyay Umar ibn Abdul Aziz keer ka bilaabay ilmaha oo hadda autism keer loo sameeyo oo dad gaar ay hayaan islaamka keena ma gaalada waxaan ka keenna ma saasoo kale Waliid ibn Abd al-Malik asagana waxa la yiri meel mustashfa u sameeyay asaga oo ku xareeyay oo dadkaas oo baahida gaarka leh oo gaar loogu dhaqaalay oo dhaqaatiir loo geeyay maxaa dhacay waqfiga islaamka wax laga siinaya oo islaamka waqfigiisa maalka waqfiga ay wax ku leeyihiin dadkan waxa waa waqfnay walidaalika Soomaaliya dhibkanaas waxay tahay ninkii albaab sar dhisanayo ma garanayo xataa dadka jiisaska meel ay ka galaan uu sameeyay hotel weyn qurux arkaysa dadka fiican loogu tala galay war dadkan xuquuq ay leeyihiin gaalada waa aragteen meel kasta tagaysid masquul gaar loo sameeyay dadkaas oo disable ka waxa leeyahay dadka laga dada loo qoro anagana ma walidaalika waadiid khaliifatu waadiid inay tuugsadaan hadda dad masaakiina Soomaali iska tuugsan indho la wuxuu tuugsi waay ma ahna tuugsan dawladdu waa in meel u sameeysa isbitaalo loo sameeya care loo sameeya oo laga marsuuma maalka dawladdu wax laga siiyo diinta ay qabtaa saas la leeyahay halkaas marka waxa arkaysaa marka inaan dayacnay xuquuqdaas ma dayacno Soomaali oo ku dhiban yihiin ninka dadka Yurub jooga ayaaba gaalada dhaqanka islaamka qaataba ayaga dhahay care loo sameeyo ilmaha autismiga hal ugu dadaalo hal loo yeelo walidaalika axkaamtu waxa la rabaa shariicada hooyooyinka waxa leeyahay war ilmaha naas dhihina salaad lagama rabo waxa ilmaha autismiga darajo kala leedahay waxa la rabaa ninka haduu aqligiisa waxay roon yahay inaad weys qaadka bartid inaad salaada bartid inaad quraanka haduu wax ku laqbay karo waxyaabo badan jiradka noolaha waxa loo keenay gacnay wax ka akhrinayaan islaamka takliifka kama harayo dad badan hooyooyin waxa jira ilmo autism haystaan waxay ku leeyihiin ma tukunaan waa iska autism waa laga rafacay maya bar haduu soomi karo soomi caafimaad uu ka qaadaya ilaahay ugu dhawaaw ilaahay waxaan haya salaada haduu tukan karo tuji masaajidaha la keeno masaajid xataa la keeno waa ilmahaas inay arkaan dadka tukanayo hay arkaan على الأقل in la ilaaliyo hadii maskaxdooda ay wax yar roon tahay marka dambe aqaligooda soo waxa loo guuriyo qaar waxa jira maalkooda lacagtooda dadka hooyooyinku iska gurtaan ilmaha autismka lacag ay ku qaadataa lacagtiisa xuquuq u leeyahay in la geliyo gabar la doono shuruuday leedahay culimada gabar markii loo doonayo gabar shuruuday leeyihiin ay u dajiyay fuqahaada waxay dhahayaan koow shardi kood waxay leeyihiin oo qofka la doonayo in uu gabadha ninka gabadha loo doonayo waxa shardi ay leeyihiin marka ugu horeysa in uu ahaado oo loo sheego darafka kale oo leeyahay ninkan saas way aqligiisu aska roon yahay laakiin ragnimo waa leeyahay adigu ku galaysa qofka kale loo sheego shardi kale waxay u shardiyaan gabadha lagu daray asaga camal inay ahaanin maxaan dhahay hadhow waxay isla ma qaadi karaan gabar aqli leh hadday gabar aqliga lahayn wiil aqli leh lagu daraa haddii gabar wiilka aqli lahayn gabar aqli leh lagu daraa waa hakada saas inay isku waayaan laakiin laba oo autism isla in la isla geeyo fuqahaada waa diideen shardigaas sidoo kale masaalixda awliya al-umur la rabo inay raacaan ay u fiiriyaan marka waxyaabo badan ayaa ma halkaas ayaa qaldan Abdullah ibn Abbas marka fiiriyo salafkeena waxa arkaysa Abu Ja'far Mansur aydan waxa arkaysa Khaliifat al-Abbasi ma uu sameeyay meel dhan oo hooy uu sameeyay oo dadkaas lagu kaalmeynay ay u sameeyay waxa kamid ah cinaayadooda waxa kamid ah bulshada inuu soo dhax daro howl loo dhiibo kaasan hawshay qaban karaan oo shaqo mushaar loo qoro yar oo la dhaho qaasatan Soomaali marka joogno Yurub marka joogno ilaa qofkan wallahi dhinaca autism wala waxa uu ku fiican qataad inuu yahay qat inuu yaqaan ayaa farti si loo qoro u yaqaan waxa soo kale wadaalika Abdullah ibn Maktum ابن مكتوم نبي عليه مؤذن وكدغي waa darajada ugu fiican inuu masaajidka adimo maxay qalbiga loogu dhisaya maxaa xusleey hadii kale indhoola waa ninkan dadka xaajo u baahan yahay asaga ma sameey karna laha ma yurbu aran wasiira laga dhigaa indhoole laga dhigaya dad wasiira laga dhigaya diinteena ugu horeysay nabi muadin oo ka dhigay balse madiina markii jihaadka aado ka baxay nabiga asaga la yiri waali ka noqo asaga xukumay Abdullah ibn Muad ibn Jabal Yemen loo diray fiiri معاد المجبل سو نينك سفيرك النبي او دير ما يمن او ديري لوغو كجيساي جيسو هاي هدنا هوش لما دين نين جيس ما يمن لو دير لما دين
cilmigiisa iyo qiimihiisa waa la dhiirigelinaya. Walidaa dadkaas oo gaariga ku socda iyo dadka oo disable ka ahay iyo dadkaas hadda autismka ka hadlayn, waxaa la rabaa in shaqooyin loo dhiibo, shaqooyin loo dhiibo, wax la baro, ganacsi wax la baro, habkii wax loo qabsan lahaa, kombiyuutarada la baro. nabiga calayhi salaatu salaam saas samaynayay ayay diintan lagu arkaysaa. waxaa arkaysaa sidoo kale cabdullahi ibn cabaas waqti ugu dambeysay indhaho la aadaalay, haddana cilmigaa laga qaadanay. sidoo kale ashar taabiciin muftiga dhan cataa waxaa layidhi cawar u ahaay, ahaad badana ku sanka wax ka go-anaya laleeyahay, haddana muftiga magaalada dhan cataa ibn rabax u ahaa arkaysaa, ibn abi rabax. walidaalika waxaan leeyahay marka in oo lagu dadaalo dadkaas si loogu dhaxay. balse waxaa la doonayaa ikhwaani arrimaha diinta, masalada dad muslimiin aan anaga in la yidhaah maaha cunugan hortiisa hooyada ama gabdhaha oo dharkooda horta ku dhita ama kan doqon waayo waxa waaye autism qaba hortiisa in la isku dhar dhiga maaha. waxaasoo dhan ma diinta in la ixtiraamo oo bini aadan ilahi la ogaado oo ajra lagu helo. maxaa dhahay iyaga ayaa ilaahay subxana watacaala ajr ku siiya. maxaa yeele an tuciina akhraq xadiiska u dhahay ninkaa dadka caqliga lahayn dadka caawino wuxuu leeyahy waxay kamid tahay sadaqay kamid tahay oo afdal bal sadaqaadka ugu weyn oo ilaah loogu dhawaado ayay noqonaysaa. waxaan rabaa marka masaladan dad badana u qumay oo ka hadlay arrintaas oo dhahaya hay-ado badan waa jiraan khayr allah siiyo oo howlahaas qabto oo mar kasta ku dadaalo inay howshaas ay qabtaan. marka waxaa jirto qolo iskuul dhigtay oo dhahayo iskuulka ubad gargaar ayaa jirto ayadana khayrshaas ka qayb qaatay in lagu kaalmeeyo si ay dadkaas oo xaajada gaar kale ay u caawinaan. ilahi waxaan ka barin dhammaanteen khayrka nagu kulmiyo. subxaanaka allah wabxamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.